waxay ahayd maalin Jimcaha waxaan u labisnaa sida boqorada waxaanan u faraxsanaa sida qof jannada loogu ballan qaaday waxaan ahaa mid nolosha ay waqtiga soo dhaweysay aadna u qalbi furan goobtu waa baridii jacaylkiyo baxsan tii Hargeysa waa goob jooga nolosha qurux la bidhaamayo waxaan fadhiyaa baro ama goob dhalinta mucaashaqiinta ah kulmisa shahana lagu sheekeeyo dhammaan dhalinta goobta fadhidana mid kastaaba wax naawiliyo farxaduna wajiyadooda ay ka muuqato daqiiqada ka hor roob ayaa naga qaaday jawiguna waa u sii roobayay xoogaa dhaxan jiri dhaco ay ku dheehan tahay ayaa dhammaan dadka wada haysa balse mar keliya ayay farxadaydii laba shibaarantay kadib markii indhahaygu ay qabteen bidhaan qurux wanaag aan haweenka la mid ahayn waxaan qalbiga ka leedsalo Maria mise waa dhalanteed malaha waa indhahayga haddana qalbiga ayaa ii leh ma hariye waa tii nolosha noorin lahayd waxaan su'aal isweydiiyeyba waxaa soo dhawaatay midii qalbigayga soo jiidatay waxaana igu ciirtay talo waxaanan garan lahayaa halkii aan wax ka bilaabi lahaa keligeed maaha oo asxaabteeda ayaa wehelisa asxaabtaydu ay dareemeen inaan hawada ka maqanahay mid ka mid ah haweenkana aan indhaha la raacayo anigoon isugeyn ayaan mar keliya asxaabtayda ka dhex kacay waxaana si dareen ku jira indhaha aan ula raacay bili haween midii aan ula baxay dadku waa ay u wada jeedaan quruxleeda aan ku maqanahay mar keliya ayaan niyadda ka idhi allow cawli ka dhowr ilxun eebba kuma tuso mid ka mid ah asxaabteeda ayaa ku tawaawacaya isagoo cod macaan ku qaadaya heesta tan saaxiibkay wuxuu waayahaba la ildirnaa jacayl calafka la irdhiyey markaasaan niyadda ka idhi heblow aanba kula mid baan ahaye aamu saaxiib sheekadani murugada xambaarsan waxay khusaysaa laba shaqsi oo jacayl dhex miranayo oo aan magacyadooda soo gaabin doono labadana xaraf ee shaashadayda iga muuqda xaaladdu waa ay sii xumaatay waana sii xagrantay waxaanan isweydiinayaa ma la hadashaa ma dabagashaa mise dadkaa kula yaabi farxaddan ku naaloonayay daqiiqada ka hor waxay isku beddeshay diiqad murugo su'aalo aanan jawaabood ahayn waxa ay fahmeen mid ka mid ah asxaabtayda oo gacanta intuu i dhuftay dhul caddeeyey igu dhiirigeliyey inaan jaaniska ka faa'iidaysto